wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay la wareegeen deegaanka Xawaali oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamada militariga xoogga dalka ayaa al-shabaab kala wareegay tuulada Xawaali ee hoostagta degmada Balcad oo ah xarun ay al-shabaab ka maamuli jireen canshuuro ay ka qaadaan gaadiidka iyo beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidankan ayaa waxaa hogaaminaya Cornel Abuukar Bono waxaana la sheegay inay ka yimaadeen dhanka degmada Cadale. al-shabaab ayaa isaga baxay deegaanka Xawaali kadib markii ay ka war heleen inay ciidamada dowladda ay ku soo jeedaan deegaanka waxaana dagaal la'aan kula wareegay ciidamada militariga xoogga dalka ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe. al-shabaab ayaa ku dhex milmay dadka deegaanka waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya oo dhowr jeer gaaray deegaankan ay dib uga soo baxeen iyadoona dib al-shabaab ay deegaankaas ula wareegeen. madaxweynaha hore Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa qabsashada deegaanka Xawaali wuxuu ku qeexay mid muhiim u ah in laga hortago al-shabaab ee ka imaanaya jubbooyinka kuwaas oo ku biiraya gobolka Hiiraan dagaalada ka socda. taliya Abuukar Bono iyo sidoo kale askarka uu wato ayaa la wareegay deegaanka Xawaali ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. buundada Xawaali ayaa ahayd meel muhiim ah oo ay isaga kala gooshi jireen al-shabaabka ka yimaada gobolada jubbooyinka iyo sidoo kale Hiiraan. waa horumar wanaagsan oo weyn ayuu yiri madaxweynihii hore Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka hadlay qabsashada deegaanka Xawaali ee gobolka Shabeellaha Dhexe. qabsashada deegaankan ayaa kusoo beegmaysa xilli dhaqdhaqaaqyo xoogan ee wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ay ka sodaan gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaas oo ay sheegeen inay kala wareegayaan deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan sidoo kalena dagaalo xoogan u dhaxeeya al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda Soomaaliya ay maalmahan ka sodaan gobolka Hiiraan. bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega Dhamays Plus. waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel. macaamiil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo 7 ah. sidoo kale macaamiil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah. macaamiil ku dooro xirmooyinka adeega Dhamays Plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn. macaamiil uga shuba xirmooyinka adeega Dhamays Plus adeega idahab code numberka xidig 114 gees adeega idahab reseller code numberka xidig 304 gees. ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees. macaamiil xirmooyinka adeega Dhamays Plus nafsadaada ku soor.